بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرينتا أن دليرتو ديريو waxay tahay in ay khayrka u degdegaan. khayr waa maxay? khayr waxa weeye wax kasta oo wanaagsan oo qurxan oo fiican oo naftu ay jeceshahay dadka kale ay jecel yihiin adduun iyo aakhiraba abaal wanaagsan iyo faa'iido laga helayo. waxa khayrka ka soo horjoodo oo liddi ku ah oo cagsi ku ah sharna waa wax walba oo naftu ay nacab tahay ikraahsanayso dhibna ku ah qofka ama dadka uu kula dhaqmayo faa'iidane aanan laga helaynin adduun iyo aakhiraba. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraanka noogu cadeynayaa qofka aadanaha ah khayr iyo shar midkii uu shaqaystaba qiyaamo markuu tago inuu heli doono. Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قفكي الوحي قبت وح أغير أما وح لي يقانو وح أغير وح عليس كذي مجد لك أو خير قفكي شقيسته قيامة مركو تجا وأركيا وهليا والوأب المرينيا سيدو كلا شر qofkii shaqaysto waxa ugu yar oo sharta ha noqdo haduu rabo isagana wuu arkayaa wuu helayaa oo lagu abaal marinayaa qiyaamaha hadii uu tago. inta sordhac markaan ka gudubno khayrka inaan sameeyno waana la amray. Allah subhanahu wa ta'ala ayaana amray, rasuulkiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaana amray. وحير الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وحليها الله وين سبحانه وتعالى سمايا خيرك سئات أولي بانتان وح خيرك كهلا سمايا نيدهان وح هدي إتهل رمايا خيرك كدبنا مركات سميسان لعلكم تفلحون. وإنت سؤال ليبانتان ودليباني سان معنا خيرك سمينتيسا والله أنا لا أمري صنع يا لقد جاي وح إلى أكتيسا أجر لو جهلي ليبان يا لقد الله أيانا كدجاي وح مركز سيدا كلنتي إلى سبحانه وتعالى ونوش جاي قرآن كيسا ونقول الرجليي ونقول درميي إن أن خيرك ودقدقلو. الله سبحانه وتعالى قرآن كيسا لبا ميل أيا وحو كلي هاي فاستبقوا الخيرات خيرك وبريتما وترتما خيرك في سورة المائدة وفي سورة النساء. فاستبقوا في سورة المائدة وفي سورة البقرة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آياتنا سورة المائدة كجرته الله سبحانه وتعالى وحليها خيرك أطرتما وعليتما أبرتما. الله سبحانه وتعالى حقي ساد الله بندونتان وحد اسكو خلافتين ويدي شيء دونا انت خيرك قادتي رميسي آمنتي كدقنتي إيه انت كلا لبداس كوخود إلهي وكلا صار دونا سيداس أيو الله سبحانه وتعالى ورنيا خيرك إن لو ترتمو الله سبحانه وتعالى قرآنك إن بدن ayuu dadka ku dhiirigeliyay. rususha wuxuu noo sheegay Allah si aan ugu dayano inay khayrka u tartami jireen. nabiyullaahi zakariya iyo wiilkiisa yaxya hooyadii xaaskii nabi zakariya qoyska reer zakariya ayuu Allah noo sheegay in ay ahaayeen dad khayrka u degdego. innahum kaanuu yusaari'uuna fil khayraat wa yad'uunana raghaban wa rahaban wa kaanuu lana khashi'in. Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala waxay ahaayeen qoyskaas reer zakariya iyo wiilkiisa yaxya hooyadii zakariya xaaskiisa qoyskaas reer zakariya ee karaamada badan sharafta badan waxay ahaayeen kuwa khayrka u degdego oo macnaha meeshii khayr laga soo sheegay ama amalkii khayr ahba isku daya inaan looga hormarin sidaas ay ahaayeen ayuu leeyahay. sidoo kale alla muuminiinta tilmaamahooda markuu noo cadeynay wuxuu noo sheegay inay yihiin dad khayrka u degdego
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله سبحانه وتعالى مؤمنين تتلماماس لصوت شغله وكوا خيرك إيواناقا ودقدقو وهم لها سابقون وين أترتمانو way ku dheereeyaan inay khayrka u hormaraan una degdegaan. nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrka ayuu dadka ku dhiirigelin jiray kuna boorin jiray. xadiis imaam tirmidhi iyo qeyrkiis ay wariyeen oo culimada qaar ay wax ka sheegaan laakiin sida xoogan culimada ay saxiix ama xasan ku tilmaameen xadiiskii Muaad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu oo nabiga weydiinayay sallallahu alayhi wasallam إيشك رسولك الله عمل جنة إيدا وين ينار تانيجا فوقينا يو النبي صلى الله عليه وسلم واحد إيوي دي ستأرم وين لكن قفكو الله أفضل ذي وأفضل ديه وحيابها مركا وحوشيك النبي صلى الله عليه وسلم وحويري تردارن كسي وحكمدها ألا أدلك على أبواب الخير معاذ بن جبل ما كنت الصيام ما كوشيكا الرداها خيرك الرداها خيرك ما كوشيكا markaasuu nabi sallallahu alayhi wasallam iridaha khayrka wax kamid ah ayuu u sheegay waxa kamid ah as-sawmu junnah wa sadaqatu tudfu al-khati'ah kama yudfu al-ma'u an-nar wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl waxyaaba a'maal khayri ah oo khayrka ka tirsan ayuu u sheegay nabi sallallahu alayhi wasallam oo soonka iyo salaada iyo qiyaamul laylka iyo waxyaabahaas ay kamid yihiin. khayrka marka walaalayaal aan u degdegayno isku dhiirigelinayno inaan u degdegno البابديس إرديس ويبدينهن عباداتك أيا خيرك كمدة إيمانك أيا خيرك والله سبحانه وتعالى وحليه ولو آمن أهل الكتاب لكان خير الله. أهل الكتاب كهدي الله الرمين لهايان سيدا سو خير بدنا لهيت إن الله الرمين أيا خيرك وهو نكسن لو دقدقي إسلام ماذا أيا خير ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الضون مؤمن وكخير بدنيا هاي مد قال أو مشركة كبر مؤمنات أو الضون أو الله رميسان وكخير بدنتها هاي مد مشركات سيداس أيولا إله سبحانه وتعالى خير كوحو جرا تقوى الله سبحانه وتعالى وحلي هاي وحورنا يا ولباس التقوى ذلك خير. inaad xirato labiska alla ka cabsiga ayuu labis ka soo qaaday Allah subhanahu wa ta'ala sidaas ayaa khayr badan ayuu leeyahay. marka khayrka albaabadiisa way badan yihiin. soomka markuu alla ka hadlay wuxuu yiri wa anta suumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. albaabada khayrka marka aad iyo aad ay u fara badan yihiin. waxa kamid ah صدقة ضدك مساكين تولا كالميو صلاة أو صف كور مساجد اللي وتكذا جماعة ولا إلاليو صن صنّة ولا صوم تاسوع عرفة مالين سعادة عرفة مالين تطبناد عاشوراء محرم إيوه إن عبادات كسلب ذي ضد بدن أيوة وحي ملايان خير كأترتما مركل لي أما خير كأترتنو وح صلاة يصون يكلي يكحرن أو أيجي إنسان أودي كريم خير كوحكمي ده لان جيد أو وضد كتالي oo aad dadka ka jartay oo dhibi jirtay. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan sida sahih muslim ku qoran laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna waxaan arkay nin jannada ku dhex gadoomay macnaha jannada iska dhex mushaaxaya oo jannada meeshuu raba ka tagay. ninkaas salaad badan iyo soom badan jannada kuma galin nooma sheegin nabiga sallallahu alayhi wasallam ee soo banaa wuxuu noo sheegay ninkaas inuu jannada ku galay wuxuu gooyay geed wadada ku yaalay oo dadka muslimiinta dhibi jiray oo qofkii maro ama mudo ama marada uga dhago ama meel ka jeexo ama ku dhago ama dhaawaco wax yeelayo. ka waran maanta markaad gurigaada ka soo baxdo oo aad u socoto shaqadaada ama goobta waxbarashada hadii wax kasta oo dadka dhibayo oo wadada yaalo sida musmaarada dhagaxyada lafaha qodaxaha iyo wax la midka ah wadada ka qaadid waa khayr. ka waran qof waayeel ama indhool oo wadada laamiga goyn la hadii aad marsiisid waa khayr. ka waran waalidka
markaad safar ka timaado haddii aad soo booqatid oo soo martid intaadan reerkaada ehelkaada aadan u tagin adoo baarinimada waalidka ka wada nin aabba ah waa yeelaa sheekeynay laba wiil wuxuu labadeedii wiil hebel iyo hebel aan jeclahay maxaa ku jeclaatay hebelaa khayr badan uu yiri oon jeclahay waxaan ku jeclaaday safar kama imaanin weligiis ilaa gurigiis intuusan tagin isagoo safarkii dhibtiisii iyo diiftiisii ay ka muuqato oo boorsidiisa wato ayuu aniga salaanta iga soo bilaabay kadib uu ehelkiisii caruurtiisa u aaday marka walaalayaal albaabada khayrka way fara badan yihiin sida nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam aan ku dadaalna khayrka aan u tartanna khayrka waxa kamid ah khayrkan ku soo gabagabeynaya xitaa meel dheer ha u raadinin kelimad wanaagsan oo khayr ah oo aad dhageysatay oo aad nashriso dadka walaalaha aad la wadaagtay marka astaanteena waxa weeye aan khayrka u degdegno aan u tartanno astawdicukum allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh